adiga midda aad leedahay baa ka badan waxa kale oo ku talagaleysaan dadka dabagalaya muslimiinta iyo dadka mu'miniinta rag iyo dumarba ceebahooda oo xamanaya oo wax ka sheegaya waxaad ogaataa ilaahay baa ku dabagalaya subhanahu wa ta'ala nabigeenu wuxuu yiri salawaatu rabbi wasalaamu alayhi ya ma'shara man aamana bilisanihi wa lam yadkhul al-iiman fi qalbihi warkuwan una qalbigooda iimaanku galin carabka uun iimaanka ka sheeganayo qalbigoodana uusan iimaan galinow laa tagtabu almuslimiina walmuslimiinta ha xamanina walaa tattabicu cawraatihim cawradooda ha raacraacina dadka mu'miniinta hana xamanina cawradoodii ceebtoodana ha dabagelina waa kuwa saalay waxa la yidhi dadka sidaas samaynaya waa dad qalbiga aan iimaanku u gelin laakiin carabka uu ka sheeganaya markaas nabigu wuxuu daba dhigay sallallahu alayhi wasallam fa innahu man yattabi awrata akhihi tatabaa Allahu awratahu ruuxi walaalkii ceebtiisa dabagala oo xumaantiisa dabagala oo dhaliishiisa raadiya isagana ilaahay baa ceebtiisa dabagala waman tatabaa Allahu awratahu yufadhihu walau kana fi jawfi baytihi nabi sallallahu alayhi wasallam aw kama qala ruuxi ilaahay uu daba dhigto oo ceebtiisa dabagalana wuu fadeexayn doonaa walow gurigiisa iskudihiisaba ha ahaatee ilaahay haddaad uga dhawaato adoomadiisa u nabadgelin weydo isaga kula dagaalamay haddaad ceebtooda dabagashana isaga ku dabagalaya hadduu ku dabagalana wuu ku fadeexayn oo ceebtaadu mar walba banaanka keeni doonaa mana fakan doontid saas daradeed waa waxa arkaysa dadka qaarkood siday fasaadka u wadeen oo ay adoomada ilaahay uga daba shaqaynayeen oo guryaha u duminayeen oo dadka isugu dirayeen oo ugu beer abuuranayeen dadka ba ilaahay subhanahu wa ta'ala intuu dabagalay ba markii dambe ceebtoodii la wada ogaaday oo la isu wada sheegay farta lagu fiiqay ilaahay baa fadeexiyay subhanahu wa ta'ala jidkaas uu maraya waka salay wati iyada ahayd way tii iyada ahayd guriga gasho oo dhan waxa la leeyahay waa tii iyada ahayd inuu guryaha fasaadinay iska jira wala isu dardaarmaya limaada laana ilaahay baa fadeexiyay subhanahu wa ta'ala fadeexa in fadeexayna waxa keenay waxay dabagashay ama ruuxani uu dabagalay ilaahay subhanahu wa ta'ala adoomadiisas adoonku ilaahay subhanahu wa ta'ala ahdigiisu ku jira ballan ilaahay buu ku jira ilaalin ilaahay buu ku jira xifdi ilaahay buu ku jira adoonku markuu ilaahay caabudayo subhanahu wa ta'ala rabbigiina ku xidhay sidaas daraadeed ilaahay subhanahu wa ta'ala magantiisa u nabadgeli magan ilaahay way subhanahu wa ta'ala maganta rabbi hadii ay ka baxsan weydo rabbi baa toos kula dagaalamaya subhanahu wa ta'ala rabbina meeshuu ka soo gali isaga garanaya wama ya'lamu junud rabbika illa hu ilaahay ciidamadiisa isaga un baa garanaya isaga un baa talama malaa'ig baa lagu fasaxi doonaa talama diinta laga gali doonaa khaatumada laga halayn doonaa talama caruurta iyo reerka laga gali doonaa wadaadkii adiga la isku kindiri doonaa talama caruurta laga gali doonaa ilmihi baa joko iyo wax balaayo qaba ka noqon doona talama adiga laftaada caafimaadka laga gali doonaa ilaahay markuu damco inuu kula dagaalamo meel uu ka soo gali doono ma garanaysid waxaad samaysaa ilaahay adoomadiisa u nabadgeliya mu'miniinta u nabadgeliya afkiina adinkiina mu'miniintu ha ka nabadgaleen dadka wixii khayraad ku dhaantana u gudbi sharkaagana dadka mu'miniinta ka cesho wa khaasatan carabka iyo khatartiisa hal iska qabto dad badan buu naarta galiyay dad badan buu khaatimo xumo sabab ugu noqday dad badan buu karkaarka weydaariyay dad badan buu hadda khatar ku sii wadaa waxaad samaysaan ilaahay subhanahu wa ta'ala dumar inta laga baqo carabka hal iska xaslo hal iska qabto khayr ku hadal ama aamus hadaad ceebaha dadka aad ku fooftana waxaad ogaataa adiguba ceeba inaad leedahay hadaad dadka ceebahooda sheegtana kaaga waa la sheegi hadaad dadka ceebahooda ka gaabsatana ilaahay waa ku asturaya subhanahu wa ta'ala ilaahay haydin asturo oo hayna wada asture ilaahay subhanahu wa ta'ala aynu caabudno oo aynu ka baqno aakhiradeenana aynu in badan u danayno walaalayaal in badan aakhira aan u danayno waxba ina tari mayso wax faa'iido oo haba yaraatee ka soo galeysana ma ay jirto hebel baa saasa iyo hebla sidaas wallahi ina lagu faa'iidin hadda ka hor haddana ina lagu faa'iidin mustaqbalna ina lagu faa'iidin majaalista aad isugu iimaanaysaan iyo meelaha aad isugu iimaanaysaan meelo khayr ah noqdeen ilaahay is xusuusiya diin ka sheekaysta khayr ka sheekaysta
sheeko iska caadiya ka sheekaysto oo macnaha cidna aan ku saabsanayn oo macnaha waxa weeye iska sheekadaasi macnaha waxa weeye iska mubaaxa ah laakiin arrintu markay gaadho ruux muslima in la taabto waa inaad danqataan oo ka istaagtaan markaasi soohdin khatar aad galaysaan haddii mid idinka mida ay samaysana inta kale waa inay difaacdo soo nabigu ma dhihin sal alla alay wasalam unsur akhaaka daaliman aw madluuma walaalkaa u hiili hadduu gardaran yahay haddii laga gardaran yahay markaas saxaabadu waxay dhaheen rasuulullahi haddii laga gardaran yahay garanay oo dee waa la isgarab taagi laakiin hadduuba isagii gardarrada wado saan ugu hiilinayna nabigu wuxuu yihi sal alla alay wasalam hadduu gardarrada wado gacanta qabo waxaa tidhahdaa jooji sidaasaa hiiladiisaa buu nabigu yihi salawatu rabbi waslamu caleyh intaasaa hiilo u ah ka qabo cadaab buu kusii socdaa naar buu ku dhacayaa khatar buu ku jiraa walaalkaa ka qabo walaashaa ka qabo ha u qoslin ha u marxabaynin yayna kugu yani wax weeyaan ha u yani sheekada yani yayna kugu wadin waxaa la doonayaa inaad tidhahdo jooji hebla jooji meel halisaad gashay cagta udhig hadday kaa maqashana khayr hadday kaa maqli weydana meeshaas si fadhiina ka kac meeshaas ruuxa muslima hilibkiisa lagu cunaya ha fadhiin waqad nazla calaykum fi lkitaabi an ida samictum aayaati illahi yukfaru biha wayustahzau biha falaa taqcuduu macahum xataa yakhuduu fi xadiiin gayri inakum idan milhum hala fadhiisanina dadka munkaraadka iyo macaasida haya xanta haya dadka wax ka sheegaya dembiyada ku jira hala joogin haddaad wax ka qaban kartana u sheego khayrka u sheeg hadday wax kaa qaadan waayana hala sii fadhiin hana la qoslin hawshana ha la wadin ha u marxabaynina ka kaca nabiguna wuxuu yihi sal lla alay wasalam ruuxii walaalkii difaaca sharafkiisa meel walaalkii sharafkiisa wax lagu yeelayo ruuxii difaaca ilaahay baa subxaanahu wa tacaala wuxuu wejigiisa ka ilaalinayaa naarta maalin uu u baahan yahay in wejigiisa naar laga ilaaliyo ruuxii walaalkii oo hilibkiisa la cunayo sharafkiisa la dhaawacayo xishmadiisa meel lagaga dhacayo aamuso oo hiiladii uu ka mudnaa aan u hiilin oo garabkiisa ka baxana ilaahay subxaanahu wa tacaala garabkiisa ayuu ka baxayaa meel uu u baahan yahay in loo hiiliyo ilahay inuu ku hiiliyo ma rabtaa addoommada ilahay u hiili dulmiga ka hortag xanta ka hortag been abuuradka ka hortag majaalista xunxunka ka hortag ruux khayr lagu yaqaana ha noqoto marka dambe waxaa dhacaysa lagula soo aadi maayo waa hebladii xidhxidhnayd weyaan baa lagu odhanaya waa tii xidhxidhnayd ee dabeecadda xumayde wadaadda ahayde marka dambe reebaadiyaha ahayd baa lagu dhihi waa tii reebaadiya ahayd markii wax lasoo qaadan ilaahay ka baqa marka dambe waad nabadgeliyo banaankaasaa lagaa maray weligoodba reebaadiye iyo yani mid dabeecad xun waxay doon ha akriyo laakiin muhimaddu wax weyaan adigii ka nabad gashay mushkila laakiin waxay ku haysataa markii un aad inta lagula soo aado oo gurigaaga lagu qabto oo shaahi soo kariso oo keegii iyo hawshii soo diyaariso oo marka kadambena aad hawsha wax ka shamirto markaa baayaa ku haysata shaki male ha noqdeen marka walaalayaal majaalisteenu majaalis khayra ha noqdeen meelahaan isugu imaanayna iyo kulamadeenu kulamo khayra ha noqdeen labada ruux markay isu yimaadeen khayr ha kala faa'iidaysteen ruuxu markuu hadlayo wanaag ha ku hadlo haddii wuxuu ku hadlayo uusan wanaagahayna ha aamuso haynu ku talagalno ruuxa xumaanta ku hadlaya shaydaanku qaatay in la qabto oo la xakameeyo isagana danbaa ugu jirta muslimiintana danbaa ugu jirta sidaasi waa waajibka ina faran iyo xilka ina saaran xumaanta iyo xanta iyo waxyaalaha shaydaanku inugu qaadayana aad iyo aada looga taxadaro carabka ha la baro inuu ilaahay xuso subxana wa tacaala carabka ha la baro inuu wardiyo carabka ha la baro inuu yidhahdo subxaana allah carabka ha la baro inuu yidhahdo laa ilaaha ila allah carabka ha la baro inuu yidhahdo laa xawla walaa quwata ila billah carabka ha la baro inuu caadaysto alxamdu lilaahi wallahu akbar carabka ha la baro dikriga ilaahi subxaana wa tacaala iyo wanaagga khayrka dadka inuu faro xumaantana ka reebo carabka sidaa ha la baro xumaantana ha laga qabto carabkani layli buu u baahanya shaquu u baahanya wuxuu u baahan yahay tarbiyuu u baahan yahay tarbiyadiisii ha la siiyo oo ha lagu layliyo oo aan haynoo noqdo insha allahu tacaala mid inoo kasba ilaahay jannadiisa subxana wa tacaala ridihiisa inoo shaqeeya yani darajaad sare jannada aynu ku gaarno cadaabka ilahay iyo ciqaabtiisa kaga nabadgalno ha noqdo biidn illahi tabaaraka wa tacaala siduu nabigeenu yihi salawaatu rabbi wasalam caley ninkii saxaabiga ahaa nebi allow waxaad igu tidhaahdaa hadal ii sheeg aanan cid kale weydiinaynin adiga kaa dambeeya markaasuu nebigu wuxu yhi sal lay wasalam qul aamantu billahi uma